السلام عليكم سوري هذا waxaan gelaynaa panel discussion kan oo aan rabnay inaan uga hadalno mowduuca tababarka mowduuca wuxuu ku saabsan yahay warbaahinta casriga ah iyo doorka ay ku leedahay ka shaqeynta xuquuqda aadanaha dhinac kastaba sida ay uga qayb qaadato marka sidaad aragtaanba waxaa panelka jooga xogayaha ururka suxufiyiinta galmudug ee galja maxamuud usmaan beerey iyo agaasimaha waaxda tababarada wasaaradda warfaafinta galmudug حسن عبد الرحمن آذن فانتاستيك iyo mulki Saciid Shaqaadan oo ah afayeenka ururka haweenka caasimada galmudug ee Nusmareeb marka waa maasantihiin aniguna Cabdaar Garaadanahay waxaan rabaa inaan doodeena guda galno oo aan su'aalo isweydiino sidoo kalena adinku aad nagala qayb qaadataan oo aad martida su'aalo weydiisaan inaga oo rabnay inaan soo koobno waxaan rabaa inaan ugu horreyn soo dhaweeyo agaasimaha Xasan oo aan su'aasha ugu horreysa weydiiyo agaasima soo dhawow marka laga hadlo warbaahinta casriga ah waa mataqaanaa wax weyn oo hadda warbaahintii ay u guurtay marka human rights ama xuquuqda aadanaha waa nolosha oo dhan wax aan ka harin marka sidee ka shaqeyntii xuquuqda aadanaha ay u saameysay warbaahintii inay casri noqotay oo warbaahinta casriyeegeedu xuquuqdii ka shaqeynteedii sidee u saameysay soo dhaw abdigaraad waa mahadsan tahay waxaan kaloo aan salaamayaa martida barnaamijkan xogayaha galja محمد اسماعيل بيري afayeenka mulki wasalaamtii waxaan kaloo aan salaan gaar ah u diraya saxafiyiinta tababarka labada maalmood muddada u socday ee dhammaan daawadayaasha meel kastoo ay dunida ka joogaan marka xigta warbaahintu waa markaad fiiriso heerar kala duwan ay soo martay ilaa waqtiyadii hore dadku waxyaabo badan wax isku gaarsiin jireen sida qeyladaan iyo bunyeerin iyo waa la wada yaqaanaa waxa u malayn dadka warbaahinta ku soo jiray oo marba waxba la soo gaarsiinay ilaa markii dambe raadiyo yimid oo marka dadkii wax lagu gaarsiiyay inkastoo qorshaha marka raadiyo la sameeyay si gaar ah ciidamadu u adeegsan jireen laakiin marka dambe la yiri waa dhinaca bini'aadanka waxyaalo badan oo isgaarsiintooda iyo hadii la adeegsado anaga dadka Soomaaliyeed marka la eegana warbaahintu heerar kala duwan aan adeegsan jirnay ilaa gabiyadii buraanburadii qeyladhaantii qaybihii kala duwan aan ka sheekeynay ayaa dadku warka isku gaarsiin jireen laakiin hadda waxa moodaa dunida casri ay noqotay raadiyo xitaa dabargo oo ku jira marka la fiirsho meelaha qaarkood inkastoo wali anaga bulshada aan ka soo jeednay ee Soomaaliyeed la yiraahdo waa dad hadal oo oral society oo inta badan wax sheega qoraalkuna ku yirahay marka sida la aldegeed wali waa laga yaabaa in awood badan oo xaqii dhageysiga raadiyaha iyo qaybihii ku xirnaa aad u badan tahay laakiin haddana dunida casri ay noqotay inkastoo aan kaga mahad celinayo qaar badan oo warbaahinta laftir dadaal ay sameeyeen oo markii casriga dunida ay gashay laftirkoodu ma aysan seexano raadiyaasha inta badan beejaja la furay waxaa lagu xiray adeegyadii social media oo digitalka hadda mowduucan ka hadlayno laakiin markaan sida nuxurka saxda aan u gudubno waxaad moodaa laftirkoodu warbaahinta digitalku waxbay la soo shirtagtay oo dhinacyo kala duwan oo saameynteeda leh oo qatarteeda leh oo faa'iidadeeda leh oo dhinac kastaba maanta markaad newser baahiso qof kasta oo dunida meel kasta u joogo ayuu ogaanayaa xogtaas waa warisgaarsiintii sidoo hore way ka fududahay oo waxaa laga yaabaa rab ama rabin doon ama doonin inta badan waa ku qasbantahay social media subax marka soo kacdo maxaa cusub inaad tiraahdo aad eegto halka dadku waaga hore is wareersan jireen Soomaalidu labada qof ee isku hor imaata leeyahay war saakay xaalku soo yahay saakay ma la bari laakiin hadda ma jirto waxa uu leeyahay Facebook maxaa lagu qoray maanta dikbeerey garaadiyo maxay sheegeen marka laakiin sidaas oo ay tahay waxa badan dhibaatadu uu leeyahay oo wax kale dhibaatadu kuma imaaninee dadka adeegsanaya ayaa laba qaybood ka kooban dad waxa laga yaabaa ay dunida iyo aaladaha casriga ay u fududaatay qofka marka telefoon kaliya ma haystaa waa telefoonkii baad hadaad hesho oo dab u hesho internet u hesho qof kasta ayaa adeegsan kara waa marka taas waxay keentay marka in dad badan oo arintii ehel u ahayn oo mas'uuliyad ilaalineen inay adeegsadaan oo wax raba ay sheegaan oo dad ay ku dulmiyaan oo xitaa marmarka qaarkood noloshii qoysasku soo saameeyay oo waxa lagu leeyahayba labadii qofood wada sheekaysanaya qof kamid ah waxa laga yaabaa inuu ku handado waxa waaye maaragtay waxyaabaha hadda kulay waa laga wada dhirsan kuma sii dheeraanayo haye
haddii gudaha aan usii galno xuquuqda aadanaha marka la yidhaahdo oo mataqaana iska ballaaran oo mar kasta dhinac kasta nolosha gelaysa warbaahinta inay casri noqoto maxay kusoo kordhisay horumar mise faa'iido bal sharaxaad naga sii cabdaahir waa mahadsan tahay runtii aniga waxay ila tahay warbaahinta casriga ah waxyaabaha ay kusoo kordhisay difaaca xuquuqda aadanaha waxa ay tahay u ololeynta arrimaha xuquuqda aadanaha xilliyadii hore iyo xilliyada hadda la isticmaalayo warbaahinta way kala duwan tahay sababtu waxay tahay xilliga hore way adkeed in dadka fariimaha lagu gaarsiiyo sida hadda fudud in lagu gaarsiiyo in idaacado oo raadiyaal la isticmaalo mar waxaa jirta aysan jiri jirin mawjadaha FM-ka ah oo aysan dalalka qaar aysan ku xooganayn oo SW laga raadin jiray oo raadiyaha la isticmaali jiray mar waxaa jirtay waxaa lagu qori jiray in posters lagu sameeyo oo sawirro gacanta lagu qaado la sameeyo laakiin hadda waxay maraysaa in muuqaal la duubay oo hadda la duubay oo digital ahaan loo baahiyo fariimihii hadda loo baahiyo qaab degdeg ah oo halkii fariino hadda la sii daayo macquul inay maanta 1 bilyan oo dunida joogta ay daawato marka aan waxaan dhihi karaa xuquuqda aadanaha oo adeegisteeda iyo ka warramideeda warbaahinta casriga ah kaalin weyn ay hadda qaadatay ka fudud sidii hore walow ay jiraan dhibaatooyin iyo qataro ayankana lid ku ah xuquuqda aadanaha oo runtii lagu faafiyo aaladaha casriga ah ay ugu horeeyaan in qof xuquuqdiisa lagu dulmo dad lagu jawrfalaayo lagu baahiyo iyo barnaamijyo hadda caan ah oo la yiraahdo rikato oo dadka qaar lagu dhibaateeyo marka warbaahintu kaalin fiican ay ku leedahay oo digitalka ah in la difaaco kiisaska iyo waxyaabaha la xiriira xuquuqda aadanaha afayeen mulki soo dhawow isla su'aashaasaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad ka shaqeysaa xuquuqda aadanaha ururka haweenka caasimada aad ka tirsan tahay kulli xogogaal u tahay baraha bulshada iyo digitalkana xogogaal u tahay dhinaca kalena xuquuqda aadanaha iyo wixii la xiriira oo dabcan aad ka shaqeysaan xogogaal u tahay marka ma isleedahay faa'iido u leedahay ama qasaare warbaahinta digital iyo dhinacan la aaday way u leedahay xuquuqda aadanaha in laga shaqeeyo aan ka soo qayb galayaasha barnaamijka loo qabanayo wariyaasha aad baa u mahadsantihiin haddaan guda galo barnaamijka sida la wada ogyahay warbaahinta heerar kala duwan soo martay xilli waxaa jiray aan xataa FM la haysan ama aan la haysanin idaacadaha kale SWC intaba oo jirtay la adeegsan jira faras warqado qoraal dadka warbaahintaas lagu gaarsiin jiray marka adduunka casri uu noqday hadba heer buu soo istaagay warbaahinta hadda jirta marka oo dhinacan digitalka oo social media wax badan isbedel weyn u sameeyay mar wuxuu sameeyay horumar oo bulshadii uu aad buu taageero u siiyay dadkii xuquuqul insaanka inta ka shaqeynaysay wixii looga baahnaayo aad iyo aad horumar ugu gaarsiiyay marna waxaan dhihi karaa dhibaato intii la eg mugeed iyadoo ku saabsan hadba qofka adeegsanaya oo dadku bulshadu sidii u kala duwan tahay qof wanaagsan iyo qof xun baa ku jira qofkii xumaayna xumaantiisiiba uga faa'iideysto oo weynaysay qofkii wanaagsanaana wanaagiisiiba uga faa'iideystay haddii ay tahay dhinac bulshada toosinteedii iyo haddii qofku uu dhinac wanaagga fiiriyo wuxuu wax walba ka arkayaa dhinaca diinta oo haddii uu ka aado haddii uu qofku dhinacii xumaaya qofka xun uu adeegsanayo uu raadiyana way u fududaanaysaa oo asna uu ka helaya marka waxaan dhihi karaa qof walba shaqsidiisu la tagay meeshaan marka shaqadiisa markuu la tagay bulshadii iyo shaqadii iyo horumarkii intaba qofkii wanaagii u adeegsaday bay ugu horumarisay wax loo baahnaa oo sidii loogu baahnaa u dhacay noqdeen xumaantii dhinaceeda markii la fiiriyayna wax kasta takaatadii ku imaanay qofka in dadkii la isku diraa ka imaanayso in beej qof intuu furto maalin walba wariye aan ahayn wax uu asagu samaysto dukaan uu furtay camal uu ugu adeegsado ficilada marka ma hadda sidii loo adeegsado wanaag uu yahay waa gartay waxaan rabaa isla su'aal kale inaan ku weydiiyo oo mowduuca aan ku sii socono marka la joogo kiisaska iyo xaaladaha xuquuqda aadanaha marka guud ahaan waa iska ballaaranta laakiin waa uun in tacaddi inta ugu badan waxa laga shaqeeyaa hadda waa tacadiyada iyo kiisaska in la galo iyo in laga sameeyo gungaar iyo in dadka lagu qabsado marka arrimahan digitalka ah ma la isku
qabtaa ama la isku qabsadaa galmudug ma ka jirtaa in horta tacadiye digital la geysto kow ogaalkaaga iyo aragnimadaadase ma la soo golo joojiyaa oo ma laga yani gabadfalladaas ma laga hadlaa oo xog ma ka haysaa arrintaas haddii aad wax ku saabsan la wadaagi kartid haa way jirtaa galmudug way ka dhacdaa in tacadiye loo geysto inta badan waxaa tacadiyada loo geysto sida badan haweenka waaye gabdhaha way jirtaa marka hab digital in loo adeegsado gabadhii wiilkii uu ka duubo wax ama uu ku takaateeyo uu yiraahdo waxaasan ka hayaa ama uu u adeegsado markaas isla markiiba asoon ayadiiba u sheegin social media uu adeegsado intuu ka duubo way jirtaa tacadiye dhibaato dhowr jeerna way ka dhacday kiisas oo noocaas oo la soo qabtay oo la galay haa oo maxkamad isla gaaray marka tacadiyada noocaas way jiraan in digitalka ay ka dhacdo sidoo kaleeto markii tacadiye wax kaleeto dhaco la xalinayo laftirkooda ayaga laftirkooda waxaa loo adeegsadaa social media laftirkooda yani in la baahiyaa loo adeegsadaa laakiin dhacdadii waxaa marka hore ay ku suurta gashay digital dartiis marka hore ilaa wuxuu dhibana u yahay kan laftirkeeda xalinta way ku imaanaysaayo markii qaylo dhaantii ay baxdo oo ay gaarto maxkamadii dadkii bulshada ay gaarto markaas kabacdi waxaa soo noqonaysa in waxaan la raadiyo oo meesha ay ku habbooneed loo raadsho oo xalkiya imaanaya xalkii laftirkiisii way wadaa maasan tahay berriyaan rabaa mar kale inaan ku laabto waxaan rabaa marka warbaahinta la joogo ayaga ruuxooda xorriyad ay leeyihiin aa jirto u baahan yihiin ama xuquuq ay leeyihiin oo xorriyadda hadalka ay ugu muhiimsan tahay marka warbaahinta la joogo marka ma kula tahay xorriyadda hadalka oo ah xuquuq ay leeyihiin qof kasta uu leeyahay gaar ahaanna warbaahintu ay si gaara ugu doodaan ama shaqadooda ah inay helaan xorriyadda hadalka caqabadaha hortaagan inay jiraan oo aad is leedahay galmudug iyo deegaanada waa ay ka jiraan arrintaas bal faahfaahinaysa arrimahaas horta way jiraan caqabadahaasna waa weliba ma yara way badan yihiin arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha gaar ahaan xorriyatul qowlka inuu cariiri badan ka jiro galmudug way jirtaa sababta ay tahay haddii aadan qofka ama nidaamyo meela ka jira xogihii rasmiga ahaa oo xaqiiqda ahaa oo waaqica ku salaysnay hadda waxaan la marayo in la yiraahdo lama sheegi karo weliba handadaado iyo dhibaatooyin fara badan warbaahinta loogu geysto way dhacdaa wax u baahan in su-aal iska weydiiyana maahane waa wax waadixa waaye oo aan qarsanayn marka annagana waxaan galiinka iyo halganka ugu jirnaa waxay tahay warbaahinta keliya maahane qof kastoo reer galmuduga inuu uu helo xorriyadiisa iyo xorriyatul hadalkiisa iyo fikir dhibashadiisa iyo weliba soo bandhigista macluumaadyada ku salaysan xaqiiqda oo galmudug gudaheeda ka dhaca runtii way jiraan in mararka qaar dad reer galmuduga ay sameeyaan xogo ama warbixino aan sax ahayn laakiin anagu taa ma ku miisaamayno miisaanna kuma saarayno inaan saarno oo aan dhahno galmudug sidaan waaye laakiin waxaan miisaanka saarayna waxay tahay waxa reality-ga ah waxa saxda ah xogaha inay bulshadu helaan ee waajibka tahay anagu ma rabno inay wariyaasha galmudug ay nooc kasta ay yihiin inay daboolaan sababtay tahay wariyaashu waxyaabaha ay u adeegayaan waa bulshada waa tala leeyahay xog helaa war hela qofka duusan xog helin wax ku soo socdana ma oga wax ka magaciisana ma jiro tusaalaha warbaahinta nool lagu sii kala maanta waxaa ka mid ah tusaale haddii maanta isgaarsiintu go'do isgaarsiinta hadda aan isticmaalno haddii go'do inta in lagu soo maraa in kale kale ma taqaan in lagu qabsan doono in lagu imaan doono in dhibaato kugu soo wajahanta ma dareemi kartid qofkii markii hal mar ateenadu baxdo dadka dhan way walwalayaan walwalkaas muxuu yahay nolosha ku xirantay sababtoo ah qofku wuxuu ogaanayaa badqabka dhan iyo jawga dhan sida uu yahay iyo deegaanku sida uu yahay waxa isku haya waxa waaye isgaarsiinta warbaahintu marka waxay la mid tahay bulshada degan oo nabadgelyada ku jirta oo xasiloonida haysata waxa gaarsiinaya haddii maanta dhuusamareeb dhexdeeda wax ka dhacaan iyo haddii maanta jamaame iyo ninka la yiraahdo iyo kunyabaro wax ka dhacaan qofka gaarsiinaya ninka dhuusamareeb jooga soo ogeysiinaya wax ka dhacay Jubbaland waa warbaahinta sidaas darteed waxaan rabnaa marka inaysan warbaahintuna daalin oo haddii si kastoo loogu handado iyo si kastoo loogu cagajugleeyo inaysan warbaahintu ka daalin inay bulshada usoo gudbiyaan xogaha rasmiga ah san tahay doodeenna waa gaabinaynaa waxaan rabaa agaasime xasan inaan mar kale ku laabto dhankiisa agaasime xasan xuquuqda aadanaha haddii gudahan usii galno
bal isbarbardhig ku samee dhankaaga adigana marka laga hadlo xuquuqda aadanaha ee aan ka sheekeynayno xaqa warbaahintu ay leedahay iyo kan ninka la yiraahdo dadka kale ay leeyihiin oo warbaahinta ruuxeeda ay la falgelayso bal waxaan rabaa in aad isbarbardhig ku samaysid markii ay warbaahintii digital noqotay oo xilli casriya lasoo gaaray khasaare miyaa is leedahay inta badan waa ay u geysatay maadaama ninka le mulkiyo kale ay ka hadashay in ay jiraan dhibaatooyin badan oo markasta ka dhasha aana ognahay inay jiraan dhibaatooyin dadka loo geysto weerar lagu qaado xogtooda la qaato si qaldan xogtooda loo isticmaalo adig waxaa ka hadashay in la isrikaatay muuqaalo la iska duubo waxaasoo dhan in digitalka ay ku suurtagelayaan waxaan rabaa bal isbardhig waxaa ku sameysaa warbaahinta casriga ahi waxa ay noo soo kordhisay iyo inaad ku dartid inagoo aan rabno inaan soo koobno sida si fiican loogu adeegsan karo warbaahinta casriga si looga nabad galo waxyaabaha khasaaraha soo dhow cabdigaraad waa mahadsan tahay martida markale waa salaamayaa runtii warbaahinta intaysan curan oo heerar kala duwana ay soo marta waxaad moodaa dunidu inay mugdo ku jirta laakiin markii warbaahinta ay soo shaacbaxday oo heerar kala duwan ay soo martay iftiin ayaa dunida u baxay waxaan hadda waqtigan la joogay casriga ah ee satellite-yada ee telefishinada iyo social media waxaasoo dhan beentaado oo qof kasta meel kasta uu joogo uu xogta ku ogaanayo oo degdegna loo helayo fursado badan ayaa ku jira maalin dhaweed inaad daawanaysa i kala ma aqaan waxaan u maleynahay yar kaamiramaan ah ayaa waxa uu wareysanayay hooyo marka ayagu ka shaqeynaysa meel dhagax oo maaragtay deed marka intuu muuqaalku duubayay ayay waxay la kulantay caqabado yar dabcan bal qiyaas hooyada intaan la daawan ka hor caqabadaha ay ku jiri karta marka sidaa la eego wariyaha tusaale wanaagsan inuu markaasi dadka codkoodu yar yahay oo cod power voice ah uu u yeelo oo dunida meel kasta gaarsiiyo oo dhankaas haddii la eegana xaquuq insaanka si wanaagsan ayaa warbaahinta waqtigan casriga digital gaar ahaan iskuma jirta warbaahinta qaybta la yiraahdo social media fursad weyn ayaa ku jirta in maaragtay dhan wanaagsan loo adeegsado in lagu soo bandhigo waxyaabaha wanaagsan oo bulshada marka la eego horumarkooda ka shaqeynaya haddii halkan loo adeegsado wax badan ayaa kasoo bixi kara laakiin haddii sida waxyaabaha kale oo xumaatada ah ee dadka la isku diraayay qabyaalada waxaas bilaadanka kala geenaya loo adeegsadana laftirkeedu dhibaato badan ayay keenaysaa laakiin waxaan qabaa fursad ballaaran ayaa ku dhex jirta warbaahintaas casriga ah dadkuna waxaa la rabaa mar kasta oo fursadu ay jirto de soomaalidu waa la yidhaahdaa nimco kasta nuqsaanteeda leedahay sidaas oo ay tahayna waxaan dhihi karaa waxay ku xiran tahay in dadaal badan la sameeyo oo la sameeyo wariyaashana aada loo baro nidaamka faafreebka oo waxyaabaha qaldan hadda waagi hore oo kale tusaale ahaan cabdigaraad oo markii raadiyaasha iyo telefishinadu ay jiraan waa la xakameyn karo oo kale warbaahintaas ninka mas-uulka ka oo kale waa waxyaabaha idaacadaasi ka baxa bulshada loo gudbina ama telefishinkaas ama journalkaas ama maxaa la oran jiray wixii kaloo la adeegsanayo laakiin bal social media qiyaas oo qofku maaragtay wuxuu rabo kusoo qori karo oo meeshu rabo uu joogo oo xitaa maaragtay laakiin sidaas oo ay tahay dunida wadamo badan ayaa jira oo xakameeyey oo marka runtii waxa waa maaragtay la xakameyn karaa waa aniga hadda ka wasaarad ahaan waxaan aada ugu dadaalaynaa in marka waxyaabahaasi runtii in xal loo helo oo markay ugu yar tahay wariyaasha wax loo sheego qofka haddii aad tiraahdo dabcan waxaan way xun yihiin oo dhib badanaa ka imaanaya xitaa wax wanaagsan waaye marka dambana in la sameeyo horta wax badanaa isku milan oo ay ka mid tahay maanta haddii facebook wax lasoo dhigo dhacdo lasoo dhigo ogaran adigoo daabana waxaa is leedahay dhacdadan ma wax maanta dhacayba muuqaalo waad aragtaa marka qaarkood waxaa lasoo geliyaa oo waa hore camal marka lasoo geliyo marka muuqaaladaas oo kale qofka marka uu daawado wuxuu isleeyahay waa wax hadda dhacay oo kale marka dadkii cod bay saarayaan edit baa lagu sameynaya marka dhinac rabaa loo adeegsan karaa dhanka rabaa loo adeegsan karaa weliba dhibaato aada u badan waa ogtaa wadamadii kacaankii carabta ama gugii carabta markii uu dhacay meesha oo arrinkaasi laga sameeyey oo dibadbaxyadii ballaaran ka dhaceen wuxuu ahaa aaladan social media marka dhankaas marka la eego khatar badan ayuu leeyahay laakiin dhanka kale marka la eego weliba mawduuca hadda aan ka hadlayno dhinaca bini'aadnimada haddii aan kusii maaragtay si maaragtay qoto dheer aan u taabto fursad aada u wanaagsan ayaa looga sheegi karaa hadda waxaad arkaysaa cabdigaraad
marmarka qaarkood markaad aragto dhacdo ama qof dhibaataysan ama qof maaragtay uma baahnid inaad tiraahdid intaad soo wacdid qof qofkaasi siduu u yaalla ama sawirkiisi qofka keliya wuxuu fursad u heli karaa muuqaalkiisa ama codkiisii ama dhibanahaasi jira markii lasoo bino inkastoo haddana laakiin waxaan aada u fiicnaan lahaa wariyaasha tababaro badan oo arrimahaas digitalka inay helaan maxaa yeelay waxaa arkaysaa qofaa la leeyahay waa la kufsada ama tacaddaa loo geystay muuqaalkii qofka oo sidiisaa lasoo gelinaya waxaa laga yaabaa nidaamyo xeeraraa jiro oo dhacdooyinka noocaas oo kale markii ay jiraan oo kale xitaa markaad rabto inaad meel dagaal ka dhacayo oo dabcan oo aad cameraman tahay xitaa dhaawacyada qaar laguma ogolo oo maaragtay inaad u duubto habka maaragtay zoom inka waxaa la rabaa inaad dhinacyo badan ka fiiriso xeerar badan ilaaliso waa ogtahay xitaa hadda ka hor qiso oo runtii aada ka dhacday koonfurta suudaan waxaa dhacday nin wariye ahaa sawirka caan baxay oo ninkii soo bandhigay wiilka markaas maxay ahayto gorgorku cunayay oo isagu markaas dhahaya waa dhacdo fiican baa meeshaas ka heshay oo muuqaalkaasi dad badan baa daawan doona laakiin sheekadu si kale ayay isku badashay ilaa ninkaas in xitaa saaxadii saxaafadda in laga saari karo mid kaloo saasoo kale way jirto ninka meel dadku biyaha ay markaas maxay marin ah oo isaga dadkii qaar ka mid a markay arkeen oo biyo meel fatahaado ay ka dhaceen baa waxaa dhacday dadka mid ka mid a oo u baahnaa codkaas in meel dheer la gaarsiiyo ayaa wuxuu sameeyey cameramanka ayuu xambaaray marka sheekadu si kale isku bedeshay ilaa ninkaas in shaqada laga joojiyo oo telefishinka hawada laga maaragtay la yiraahdo xitaa ma shaqaynaysa isaga marka wuxuu isdhahayay waxaa laga fiirshay ninka bini aadanka ah ee dushiisa ku xambaarsan ee haddana shaqada qabanaya marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa wariye adigoo is oranaya dad caawi oo inaad maaragtay baashu ay meelo khatara kula gasho marka in wariye hadda sidee tahayba waa inaad qof mas-uul inaad tahay waaye waxaa ku dhegaysanaya qof kastaa ku dhegaysanaya waxaa laga yaaba qof dad mas-uuliyaddu ay ku yar tahay dad saas oo kale mas-uuliyana commentigaad arki kartaa marka hadda commentiyada aad fiiriso dadku marmarka qaarkood waxaa is leedahay waa qaadiyaal maxkamad jooga waa say wax u xukumayaan sime xasan waa maasan tahay taladaada iyo waay aragnimadaada mulki waxaan rabaa taladaada adigana waqtigii salaadan joognaa sidee looga nabadgeli karaa internetka iyo digitalka loona adeegsan karaa macnaha dhibkiisana looga baaqsan karaa marka xuquuqda aadanaha iyo shaqeyntooda la joogo loona isticmaali karaa si fiican taladaas oo dhan bismillahi raxmaan raxiim tala aada u wanaagsan waaye waxaa looga baaqan karaa in bulshadu ay adeegsato social media dhinaca wariyaasha oo xaqiiqada leh oo idaacadaha iyo dadka u shaqeeya social media way badan yihiin dadka ku jira bulshadii oo dhan dhalinyaro iyo waayeel ummaddii oo dhan aa ku jirta inta badan marka ummadda waxaa ka mid ah marka dad ku shaqo leh idaacadaha wariyanimada ama ku shaqo leh idaacadaha ka shaqeeyo ayaa ka mid ah oo warar tafaftiran soo saari karo oo war la tix raaci karo oo meel saleh oo loo bahalkii biyo dhiga leh oo laga soo saaro bahalkii idaacad gaara ama local ha noqoto ama idaacad international ha noqotee inay ka soo qaataan bulshadu war ka soo baxo bulshada warbaahin ka soo baxo oo war xaqiiqaha la qaadan kare warka markii aan la qaadan karin waxaa war qof kasta iska yiri haddii aysan bulshada ka fogaanin ay fiiriso maxaa maanta lasoo dhigay hebelaa soo dhigay ama loo taageera qabiil ahaan ama loo taageera aqoon oo la yaqaano waxba ma kordhinayso waxaa wax kordhinaya war sal leh oo tifaftiran oo idaacad ka soo baxay in ambeej saxoo la yaqaano warkiisa ee bulshadu ay soo xigato dad lagu kalsoonaan karo maxaa yeele waxaa jirta xilli hogaami kooxeed ka jira waddanka soomaaliya oo idaacadana ay furnaayeen idaacado badan oo dadka heerka hadda ay joogaan soo gaarsiiyey oo wax badan soo qabtay idaacadahaas marka waxay samayn jireen warar tifaftiran ay soo saari jireen waa lagu kalsoonaan jiray ayaga laftirkooda lagu sii kala kalsoonaan jiray markaas la jiray idaacad heblo markaas warkaasay maanta soo saartay warkaas idaacadaas uu ka soo yeeray waa war la qaadan karo ma ahayn wax lagu noqonayo ma aysan ahayn haddii ay tahay koox xuquuqul insaanka ka shaqaynayso haddii ay tahay koox way kala lahaayeen wariyayaasha xataa shaqooyinka way kala lahaayeen ani waxaan xasuustaa subax aan weligay hilmaamin gabar wariyaha duniyo muxudiin la dhaho la dilay balaagsii ugu martay
balaagsii ugu martay afgooy u socotay iyadoo meediha galabta laga soo celishay waxayna raadinaysay idaaca waxay ka hadli jirtay barnaamijyada ay samaysana waxay ahaayeen barnaamijyada dadka dad codka gaaban oo ama kaamamka degan dadka danta yar dadka laga tirada badan yahay dadkaasi xogahooda ururin jirtay marka waana lagu kalsoonaay barnaamijkaas galabta soo galaya idaacadaha bisaan xogta laga heli jiray dabcan oo waxaan baahsan bulshadu ay beejijka idaacadaha ama beejijka gaar idaacaduhu leeyihiin ay la xiriiraan oo ay dadkan iska dhehdaahay qof walba asagu dukaanka u furta ay tahay ay ka gudbaan waxaa imaanaysa markuu qofkan waayo falow oo wax fiiriyo waayo asaga laftirkiisa beenta marka wacyigii dadkaa liita ma la dhihi karaa oo weli ku xiran dadkaas iyo iska jecel dadka wax buunbuuniyey dadka beenta sheegay dadka dhan hadda xagga u badan yihiin dadkaasaa loo badan marka wacyiga dadka inta dhinaceeda waa laga liitaa waa run idaacadaha laftirkooda waxaa la rabaa in wacyigelinta ayaga laftirkooda beejajka ay dhigaan ay bulshada ka wacyigeliyaan xumaanta kuwa ku samaynayo wanaagga ayagana ay u furaan ay dhinacaas wacyigelintii ay ka tiiriyaan marka bulshada ay aragto kan idaacadihii oo laga wacyigelinayo la taageerayo soo noqnoqonayo barnaamijyadii 24 saac ay ku soo noqnoqonayaan waxa badan bulshadu way raacdaa marka waxaa imaanaysa in midka u adeegsanaya qaladka uu meesha isku baabo oo taageero waayo waa mahadsan tahay waa gabagabaynayna talooyinkaaga waa ku mahadsan tahay xogay maxamuud cusmaan igu dhiib berey soo dhow adigoo noo soo gabagabeynaya talooyinkaaga hadday sharciyo tahay haddii ay talooyin kala tahay meediyaha wixii as leedahay dijitaalka si badqab ah oo loo isticmaali karaa garaad waa mahadsan tahay markii laga hadlayo arrimahan xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta casriga isticmaalkeeda runtii horta faa'iido weyn ku jira oo waatan horey ugu wada sheegnay marka waxaan rabnaa marka in khataray leedahay khataraha ay leedahay waxaa ka mid a inaan dee lagu tiigsanin qof xaquuqdiis iyadoo la maagayo laga shaqeeyo human right inaysan warbaahintu isticmaalin inay qofkii ay dhibaatadii uu ka cabanayo dhibaato ka badan uusan gaarsiinin in la ilaaliyo anshaxa iyo habnidaameedka loo nidaaminayo sheekooyinka loo dhigayo in la dhowro qofka sumcadiisa iyo magaca uu leeyahay iyo waxa dhan in loo ilaaliyo warbaahintan casriga ah khatarteedu aad u badan tahay maadaama intaasoo dhan ay jirto waxa loo taagan yahay oo 24 saac laga hadlayana ay tahay sidii kor loogu qaadi lahay arrimaha xuquuqul insaanka iyadoo la adeegsanayo warbaahinta casriga ah in waxyaabaha khatarta ay leedahana bulshada laga ilaaliyo waxaan kaloo aad iyo aad u boorinayaa in wariyaashu meel kasta ay joogaan ay diiradda saaraan sidii ay u difaacin lahaayeen arrimaha xuquuqda aadanaha taasoo ah haddaad ugu hiilisid qoraalkaada iyo codkaada bulshada dhiban ee Soomaaliyeed runtii waxaad ku helaysaa xataa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu kugu dambi dhaafo sababta ay tahay waxaad ka shaqeynaysaa wax waaye camal wanaagsan iyo wax oo Ilaahay raali ka yahay marka waa mahadsantihiin dhammaantiin intaas ay noogu egtahay dooda